Asalaamu calaykum. Waxaynu ku jirnaa dhammaadka sanadka miilaadiga ee 2020. Sanadkan waxaa soo maray caalamka dhacdooyin waaweyn. Dhacdooyinka ayaa noqonaya kuwo in la ilaawaa ay adag tahay. Waxaynu ka soo qaadanaa dhacdooyinkaas qodobo ka mid ah qodobadii ugu xasaasisanaa. Qodobkeena koowaad wuxuu noqonayaa Carabta iyo Israa'iil. Waxay ahayd markii ugu horeysay ee Khaliijku si cad ula sameeyo xiriir dowladda Israa'iil. bilowgii coronavirus waxaa bilaabmay sanadka cudurka loo yaqaano COVID-19. Cudurkani waxa uu bedel saaray caalamka oo dhan, wuxuuna noqday cudur ka duwan dhammaan cuduradii la yaqaanay, kaasi oo u dhinteen caalamka tiro aad u badan, halka in badanna ay ka bogsadeen. Waxaa la joojiyey sanadkan safaradii caalamka iskala kala gooshi jiray, waxaana albaabada loo laabay dhammaan goobihii bulshadu iskugu imanaysay, halka uu qof kasta uu ku qasbanaa inuu gurigiisa aanu ka soo bixin. Cudurkan ayaa ilaa hadda taagan, isagoo sii koray siina weynaaday. Allah inaga nabadgeliyey sanadka 2020. Waxaa Maraykanka madaxweyne ka ahaa Trump, oo ah nin siyaasad foolxum la yimid dalka Maraykanka. Trump diiditaankiisa ku aadan aqbalaadda guusha Biden. Trump wuxuu markii ugu horeysay diiday natiijada doorashada Maraykanka. Sida lagu yaqiinay doorashooyinka Maraykanka, madaxweynuhu wuxuu ahaa mid aqbala natiijada doorashada, wuxuuna ahaa mid u tahniyadeeya una hambalyeeya saaxiibkiisa dhigiisa ee kaga guuleystay doorashada, halka Trump uu ilaa hadda aqoonsanayn in laga guuleystay, una tilmaamay doorasho lagu shubtay. Waxay tani dishay sumcadda Maraykanka. Emmanuel Macron waxay ahayd markii madaxweynaha Faransiiska Macron uu aflagaadeeyay nabigeena suuban ee Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Tani waxay kicisay dhammaan muslimiinta caalamka, waxaana ka muujiyeen muslimiinta caalamku cadho xooggan. Waxayna joojiyeen dowladaha muslimiintu dhammaan badeecadihii uga imanayay dalkaas. Faransiiska ayaa ilaa hadda ka taagan yahay khalkhal amni iyo dhaqaalihiisa oo hoos u dhacay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.